kulanti habboon daawadayaal halka aad nagala socotaan waa warbaahintii Chess Media barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Ismaaciil Xirsi Cigaal. Waayahay barnaamijkeena qodobada aynu ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah doorashadii dhinacan iyo Minnesota ka socotay oo lagu kala calaf qaaday iyo cidii ku soo baxday. Sidoo kale waxa aynu guud maraynaa warqadaha isdhaafaya ee dhinaca hawada iyo diyaaradaha Somaliland iyo Soomaaliya oo hadeer xaaladoodu meel adag marayso iyo barnaamijka e-visa la magac baxay lacag ururintiisu xagay ku saleedahay. waayahay qodobada iyo qodobo kaleba waa soo qaadan doonaa barnaamijka share gareeyo aragtidaadana commentiga noogu reeb like ta saar barnaamijka aynu ku horeyna ee doorashadii ka dhacday dhinacan iyo Minnesota oo lagu kala calaf qaaday balse khasaare maxaa ka dhashay halkan ila daawo صورة وعرفتي جوار عالكان مقدلي جوار ثلاثة توري جلسة يا الله وعرفتي جدا جيد الآن توديكا إن على الله ونجد صورة وعرفتي جوار عالكان مقدلي جوار ثلاثة توري جلسة يا الله وعرفتي جدا جيد الآن توديكا إن على الله ونجد waayahay khasaarayaasha soo gaaray ama xilligii doorashada lagu jiray xamaasad iyo qabyaalad ka bacdi waxyaabaha ka dhashay waxa kamid ah gabadha la yiri midba ku dhacday oo gabadh kale ku dhufatay. waayahay doorashooyinka Afrika lagu galo waxaynu ku naqaanay taageerayaasha xisbiyada kala taageersan iyagoo qabyaalad iyo xamaasad waliba gacan ka hadal markay doonto gaadha baashu soo xagga Minnesota qabyaaladu waa taala inkastoo ay Soomaali dhexdeed ahayd arintani ama dhacdadani haddana waxa jirtay iyadoo qabyaaladu la fogaatay oo reer Minnesota badidoodu arrimaha qabyaalada aad uga hadlayeen. nimayahow qabyaaladu waxaanu islahayn halkan lagaga tagaa soo xaggaasaba ku xoog weyntahay oo anagu gacantaba kama hadli jirin. bal haddaba doorashada waxa ku soo baxay nimankan aad arkaysaan cidda ay kaga guuleysteenna waa garanaysaan. maanta haddaba reer Minnesota iyaga ka falcelinaya arrimahan iyo doorashadan cidda ku guuleysatay ma maamuli kartaa ama ma hogaamin kartaa oo waxyaabaha ay u baahan yihiin asaasiga ma kafeen kartaa wan cadaanaya madow. waayahay arrimaha doorashada iyo khasaaraha ka yimi haddii aynu halka kaga nimaadno waxa jira duulistii hawada Soomaaliya iyo Somaliland bariyahan dambe way isku hayeen balse waraaqdan la soo saaray 11 bisha oo loo kala diray shirkadaha duulista ay ka mid tahay Ethiopian Airlines ay ka mid tahay Emiratka ay ka mid tahay Djibouti Airlines diyaaradihii dhammaanba shirkadihii ka hawlgalayay dhinaca diyaaradaha waxa lagu soo rogay iyadoo ujeedka kaliya laga leeyahay ay tahay sida warqadaba ku cad Somaliland iyo Hargeysa dadka aan e-visa haysan u duulay ka digaya maxay waxa jirta lacagta e-visa premium bank maxaa iska galay arrinta waxa si horeba u soo dhigay warqad la xiriirta tan mulkiilaha Walrimid oo Ismaaciil lagu magacaabo waxaan ku cadeeyay bankiga la yahay Premium Bank in uu Xasan Sheikh Maxamuud si shakhsiyan ah u leeyahay ama sheerka ugu weyn ku leeyahay waana Premium Bank waxa iska leh Xasan Sheikh Maxamuud sida aan horaba muddo 7 bilood ka hor aan warbaahinta u soo gelinay waxa jirta mas'uuliyiinta Somaliland waqtigan xukuumadda joogta kamida ayaa qaar kamid ah waxay mas'uul ka yihiin Premium Bank iyo SBI bankiga leeyahay labadaasiba sida aan hore u soo sheegnay waxa jirta in Soomaaliya qayb ka tahay waxaana yimaadeen waqtigii xukuumadda Mise Biixi joogtay ayaa loo saxeexay inay ka hawlgalaan Somaliland. maantana e-visa waxay u tahay lacag qabashada koobaad sida uu milkiilaha Walrimid ba sheegay. Premium Bank waxay e-visa ay lacag qabasho u tahay e-visa iyadana jaraysa sida ay sheegayaan. waayahay arrinka hadaba maxaa ka jira sidaynu ognahay
Premium Bank iyo SBI oo saraakiisha u kala hooseysa ama mas'uuliyiinta u kala hooseysa aynu wada garanayno qaarkoodna xilal dowladda ka hayaan. waxaa jirta in ay lacag qabasho u yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda Muqdisho. arrinkaas waxa culays weyn ku keenay qurbo joogta reer Somaliland ama cid kasta oo Hargeysa imanaysa oo baasaboor ajnabi sita. waxaanad arki doontaan haddii aynu sii noolaano aan iminka wax laga qaban iyadoo Hargeysa gudaheeda e-visa laga goosanayo oo lacagta lagu shubayo Premium Bank. waxa taas sii dheer ama 7 bilood ka hor warka aanu sheegnay ka mid ahaa Premium Bank marka laga yimaado country code-ka haddeer dadku ku baraarugeen ee xukuumadda Somaliland dalbatay. maxaa looga jeedaa country code-ka Soomaaliya markay gacanta ku qabato ma ogtahay inay cashuur kugu soo rogayso oo ku shubashadaada cashuur ka goosanayso oo lacagtaada xawilaadda lacag ka goosanayso oo hantidaada iyo sariflahaaga iyo maxaa sheegay lacagtaada bangiga taalba cashuur ku waajibayso. waxaana kugu khasaba qof kasta oo isticmaala furaha 00252 in cashuur Soomaaliya ay ku waajibayso. Somaliland waqti dhow waxay gudbisay fariin ay ku doonayso country code gaar ah. wax jawaabase laakiin weli alaanka lagama hayo. warbixintaana waxaanu bixinay 7 bilood ama 8 bilood ka hor meelaha waana la soo helayaa haddii imanka channelkayga aan baadho amaba waan idin horkeeni doonaa. arrimahaasi marka aanu sheegnay ee niri waxa arki doontaan iyadoo laydinku maamulay dhaqaalihiinii, hawadiinii, erboodadiinii iyo weliba lacagta moobilkaaga kuugu jirto oo cashuuraad Muqdisho laga leeyahay kugu waajibayo. may ahayn wax ciyaar aan anagu isaga niri ee waxay ahayd waxyaabaha waaqicaa ee iminka iska daba imanaya. muddada aanu sheegnay marka loo eegana waxaad moodaa waqtigaa hore inaan dad badani ka falcelin laakiin maanta aad loogu baraarugay. haddeerna e-visa maxay dowladdu ka qabatay ama xukuumadda Somaliland maxay ka qabatay? baarlamaankan arkayay oo hoos u faqaya oo kuwii wadanina gaar ay u faqayaan oo xaruntoodii ku faqayaan xisbiga wadani. looma baahna ama aamusnaan laguma difaaci karo Somaliland ee waxa weeye gobonnimadu waa waxa kaliya ilaa aad u dagaalanto aanad helin. gobonnimadu waa waxa kaliya ilaa aad u dagaalanto aanad helin. ma aha dagaalku ka xabadda la rido mid siyaasadeed iyo mid xabad la ridayo iyo mid taageeraba wuu ku imanaya. cid kuu turaysa haddaad aragto adna waa loo turaa laakiin cidaan kuuba turayn haddaad aragto dee adna ha u turi. tan iyo kulantidaba waxaan leenahay barnaamijka idinkuna aragtidiina noogu reeba commentiga subscribe-ta hilaaguna. barnaamijka waxyaabaha soo socda inta badan waanu idin hor keenaa balse siday tahay ugama falcelisaan. tan iyo kulantidaba waan salaamaynaa maca salaama baa idin leh.